doodan qaybinaya aniga waxa la yiraahdaa biixi maanciga waxaan ahay xildhibaan golaha shacabka dawladda federaalka ka tirsan deegaan ahaan waxaan ka soo jeedaa Somaliland runtii markii hore ma rabin inaan dooda wax ku darsado oo banalka sida loo qaybiyay baan salugsanaa sida dad horena sheegeen marka ma rabin inaan wax ku darsado laakiin xogaa waana la soo qaaday kol hadii lagu soo qaadana waa waajib inaad wax ka tiraahdo qadiyada meesha taalana waa qadiyad masiiriya oo qof kasta oo Soomaaliya qusaysa anagana si gaar ah aan aaminsanahay inay noo qusayso anigu Somaliland حالديده iyo warkeeda wixii qabso maanan Somaliland bulshada reer Somaliland baa ku ammaan halkan waxa laga soo qaaday marka laga hadlayay wada hadallada iyo matalaada iyo in la isu go'aamiyo cidda wada hadallada doorka iyo arrimaha horta the concept of representation or had iyo qadiyada Somaliland eray ka dhahdo marka matalaada laga hadlayo laba macno waaweyn bay in uu ku matalo fikir ama afkaar oo qof aanad waxba idinka dhaxayn oo aragti qaba kugu matali kara oo aad ogtahay inuu iyo fikirkaaga qabo Somaliland dadka cadaawada kama dhaxayso dhibaato kama jirto hal arrin un baa lagu kala gedisan yahay oo dadku anigu waxaan aaminsanahay in dadka Soomaaliyeed isku dad yahay isku dareen yahay isku duruuf yahay isku mustaqbal yahay oo aan meel la kala aadi kara aanay jirin markay taa timaadana aragtida ah in taas si bisil oo ilbaxnimo ku jirto looga doodo oo maxaan ku dhahdayay laga wada xaajooda waan ognahayo in Hargeysa ma taalo mushkilad aan ahayn fulaynimo fikir oo Hargeysa taala ma jirto banalkan ka muuqatayo Cabdirashiid baa cudurdaarkiisii aan wada maqlayseen marka madashani waxaan filayay ama aan rajaynaya mustaqbalka inay ka duwanaato ay noqoto madal dadku si caafimaad qaba oo critical ah not only arrinta Somaliland kale arrimaha Soomaaliyeed oo dhan arrimaha meelaha la isleeyahay waxba iska sibir seegan ama wax ka xun yihiin halkeeda loogu tago iyadoo xumaani jirin aan cidina iscaayahayn cidina isnabcayn haddaan ku soo dhawaado qadiyada wada hadalka waa laga dhawaajay waxa la yiri framework iyo nidaamka lagu wada hadlayay baa qaldana waan qaba anigu from the beginning waxa ugu horeeya ee marka negotiation ama wada xaajood la galayana waxa ugu horeysa kow horta in laga heshiiyo yihiin dadka wax ka dhaxeeyaan actorska wada hadalladu yihiin mabaadiida guudna laga heshiiyo dan issueska iyo detailska iyo waxyaalaha kale meel kale noqonayaan hadda ma aaminsan inaynu ka hadlayno saami qaybsi iyo power sharing iyo arrimahaasi waa arrimo dambe laakiin doodka waxa qaybinaya ee ay tahay inay ama darafyadu isku hayaan waa aragti waa fikir dad raba Soomaali inay isku jirto iyo dad raba Soomaali inay kala tagto meesha doonaha joogan anigu waxaan ka mid ahay dadka raba Soomaali inay wada joogto marka taa laga hadlayo horta dadka wada hadlaya waxaan rabaa inaan xoogaa waqti ay siiso waayo
laba dhowr qodob baan rabaa inaan oo mar raba maadaama aan fursad haysan aan ku soo noqdo waxaan rabaa inaan dhowr qodob dul istaago marka dadka wada hadlaya in lagu eego horta war dadka afkaartan qaba kala duwan waa inay iyagu wada hadlaan doodaasi Soomaaliland kama dhici karto anigu baahi uma qabin inaan baarlamaan galo haddii aan heli karo platform fikirkayga aan Soomaaliland waxaan aaminsan kaga sheegan karo wax baahi oo u qaba ma jirto haddii doodaasi anagoo Hargeysa jooga aan geli karo shaqada qaban karo waxba uga ma baahnin inaan xamar tago oo baarlamaankeeda galo waxa keenaya dadka reer Soomaaliland ee dawladda federaalka ku biilaya waxay tahay space kiiba aan furnayn qofku marka waa inuu helo platform kale oo fikirkiisa ka sheegi karo haddii laga hadlayo marka model iyo framework the experience badan baa dunida ka jira anigu tusaalaha ugu fiican ee soo qaadan kara halkan marar badan baa tusaale laga hadlaa waa tusaalaha ugu fiican ee markaan qadiyadan ka hadlaynay noqosayo waa Northern Ireland sababtan soo qaadanayana maaha issueska la isku hayay iyo afkaaraha iyo diimaha kala duwan laakiin qadiyada secession-kuna way ku jirtay qadiyada dad kala aragti doona qolana rabto unity in Ingiriis kala noqdaan qolana rabaan inay ka baxaan na waa ku jirtay haddaad qadiyada taariikhdeeda eegto laga soo bilaabo 1960 intii mushkiladaha ugu waaweyn ay soo ifbixeen intaasoo wada hadal baa fashilmeen dawr 70 bay fashilmeen 80 bay fashilmeen 93 bay fashilmeen 98 markii ugu dambeysay bay hirgaleen sababta kaliya u hirgaleen haddii aad research ku samaysana waxa weeye waxa la saxay dadka wax ka dhaxeeyaan ee actoriska ee miiska imanaya baa la saxay dadka unionistiska ah ee Northern Ireland ee Ingiriiska rabay lama oranin Ingiriiska ku matalayo oo qadiyadaadii ka hadlaya aad uma iman kartid miiskay fadhiyeen stakeholder bay ahaayeen waa fadhiyeen anigu halkan hadda Faarax baa xilbaan Faarax baa ka dhawaajiyo yiri waxaan aqoonsanay midnimada Soomaaliland anigu ma qabo martina ogama ihi Faarax iyo nin kale oo Soomaaliyeed inuu go'aan iiga gaadho qadiyada iyo arinta masiiriga ah ee aniga ay qusayso qof kasta oo Soomaaliyeed qusayso gaar ahaan anigu marka aan deegaanka ka soo jeedo waxaan rabaa inaan door ku yeesho oo dadka fikirka aan qabo la maqlo aragtidayda dhiibto qofnaba dawlad federaal iyo madaxweyne toona marti uga meehi ilaa taala martina uga meehi laga hadlay wada hadallo lahaa ma garanaysaa in qodobo lagu heshiiyo hirgeli waa ma hirgeli karaanba annagu horta waa inaan doodna haddaan reer Soomaaliland nahay isqancinaa wax isla meel dhignaa waan ku hambalyeynaa xirsi uu qiray in arrinta loo baahan yahay laakiin wuxuu ka dambeeyay marka Soomaaliya la hadlo way ka horeysaa waa inaan wada hadalnaa si caafimaad qabta u doodnaa markaan wax isla meel dhigno arrimaha kale la galaa aad baad u mahadsantahay qodob baan ku soo xidhay ugu dambeeyay aad baad u mahadsantahay xilwaan hal one second okay aan ilduufay oo ahaa marka matalaada ka hadlaynay Soomaaliland waxa abuurmay horta 30 sano anu waan ka shaqeeyay elite dadka hadda inta badan siyaasadda jangooya oo dimuqraadiyadu inkastoo dimuqraadiyadu jirto laakiin waxay u badan tahay inay procedural democracy tahay warimaan xuquuqda ka hadlaynaba haday substantive kama inaan hadalin freedom of speech waa basicski iyo freedom of political orientation iyo waa basicski marka arrimahaasi waa arrimo domestiga quseeyo oo ay tahay in la taabto marka elite kaasi wuxuu abuuray oo horseeday in aad moodo inuu aad uga go'an yahay dhanka dareenka iyo fahanka shacabka oo mushkiladda dawladda dadka reer Soomaaliland haysataa ka dhalatay maxaan ku radaa statuska ma garanaysaa ama hanginka ee xaaladda haday tahay waxbarashada haday tahay caafimaadka haday tahay dhan walba waxaad moodaa inaanay aad ugu dareen nugleyn maalin kasta ragayga xamar jooga waxaanu adeeg iyo service siinaa dad reer Soomaaliland oo milyanisa oo kumanaana nin dhakhtar raba oo waana basics waa intay dawladnimadu bixisade nin scholarship raba nin 30 sano oo soo dhiganayo shahaadadiisa meel la tagaa jirin oo u baahan in loo bedelo haddaanay taasi matalaad ahayn anigu ma garan karayo waxa matalaad u taqaan